xuska ka soo wareegatay asaaska sanad guuradii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegneed 2 bishii 1994 ayaa waxa maanta si weyn oo lama arag looga xusay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ciidamada qaranka ee ku sugan taliska qaybta 12aad ayaa soo bandhigay gaarda ka ciyaar iyo dowladis military. Taliyaha qaybta 12aad ee gobolka Togdheer Gaashaan la dhaxay Cismaan Maxamed iyo taliyaha aaga Gaashaan le sare Maxamed Abukar Joon ayaa ka warbixiyay muhiimadda munaasabadan iyo maalintan iyagoona hambaliyo u diray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana kamid ah hadaladoodii sidii nidaamkii ciidan lahaa caalamiga ayuu leeyahay ciidankeenu maanta hadday kala sareynta tahay hadday dhismaha tahay hadday qaabka istiraatiijiyadeed ee guud ee ciidanka tahay madaxweynaha qaranka ee maanta jira Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo karaamada maanta ciidanka dushiisa saaran ee ciidannimada ah iyo kala dambeynta sharciyada darajada waa madaxweynaha saxiixay sii daayay ogolaaday waxaan leeyahay hal loo soo jeedo oo hal jiro qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadda waa maalintii ciidanka qaranka waxaan u hambaliyeynayaa oo u tahniyeynayaa dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaliya waxaan hadalka u qaadanay inaan inii hambaliyeyno maadaama ay tahay maalintii ciidanka qaranka sanad guuradiisii hadday saraakiil tahay hadday saraakiil xigeen tahay hadday alifleeyo dablay tahay iyo xaasisku geesta kala duwan degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa waxa ugu horeyn hambaliyo u diray ciidanka qaranka Soomaaliland iyo xaasisku jananba u soo dhiibay waxaan sida halka maanta ay marayso waa meel Ilaahay loogu mahadnaqo aynka ma dada haysaan iyo hawsha ku hawlantiin cidna loo sheegi maay waxay ku soo urursan tahay nin lagu seexdo ha seexan waa inta Maxamed Cali Salaaman Ramaax barasaabka gobolka Togdheer waxa uu isna hambaliyo taala mid u diray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaasaskooda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waa ciidankii ummaddu ku seexatay waa ciidan gutay waajibkoodii waa ciidan cadowga naxdin ku ah waa ciidan farxad ku ah dadweynaha isagoona hadalkiisa sii wata barasaab Ramaax waxa uu ganaf ku dhuftay dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland isagoona markii uu horeysay sheegay siyaasiyiinta simatalin Soomaaliland uga diraya kuwa xamar ka soo hanjaba leh waa gobol ka mid ah Soomaaliland iyo kuwa biidhiqaatayaasha ee intay shaqo tageen ummad aan dooranin ummad tashatay ummad cududoodii dhisatay ummad ciidankoodii leh ummad gooniisu taagtay oo la soo noqotay xorriyadoodii leh annaga matala intay guri hoosta ka soo xidheen oo sanaaduuq beenbeena aanay ummadan iyo dadkan ku metelin